socdaalka shaqo ay ku soo gaadheen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal wafdiga ballaadhan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Professor Axmed Cabdi Ismaaciil oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka socday sanduuqa horumarinta Somaliland loo yaqaan SDF iyo sidoo kale xubno ka socday deeq-bixiyaasha Somaliland ka taageera horumarka ugu horeyntii markay wafdigan ay soo gaadheen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa halkan oo xafiiska gobolka Awdal waxay kulan kula yeesheen barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalinti taasoo iska xog wareysteen halka uu marayo mashruuca biyo ballaadhinta ee ka socda galbeedka magaalada Boorama. Intaasi kadib wafdigan isugu jiray wasaaradda qorsheynta qaranka, maamulka gobolka Awdal, sanduuqa horumarinta Somaliland, deeq-bixiyaasha iyo sidoo kale shirkadda Shaba ayaa kormeer ku tegay halka uu ka socdo mashruuca biyo ballaadhinta ee magaalada Boorama, taasoo ay u kuurgalayeen halka uu marayo mashruucaasi iyagoo markaasina warbixinooyin kala duwan ka dhageystay injineerada iyagu mashruucaasi gacanta ku haya. Iyadoo xusid mudan tahay in mashruucan laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland ee loo yaqaano SDF. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Professor Axmed Cabdi Ismaaciil oo halkaas ugu horeyntii ka hadlay ayaa faahfaahiyay runtii baahida ka jirta biyooda degmada Boorama waa baahi muddo dheer soo socotay magaalada ballaadhanaysa darteed iyo isticmaalka biyo sii badanaya. Dabeetana dawladdu waxay qorsheysay sanduuqa la yiraahdo SDF oo kamid ah sanaadeeqda loogu talagalay inay horumarka lagu caawiyo kamid ah ayaa waxa loo qoondeeyay SDF-kii qayb kamid ah. Dabeetana meel buu soo gaarsiiyay haddana SDF-kii oo qaybsi labaadana waxa weyn qayb labaad ayaa Boorama loogu daray. Ujeedadu markaa waxay ahayd inay magaalada Boorama ay hesho biyo ku filan. Mashruucaasna hadda si fiican buu socdaa waxaana maalgelinayay oo lacagta isku soo dardaray waxa weeyaan wadamo kala duwan oo Somaliland runtii saaxiib la ah kana caawiya waxa weeyaan dhinaca horumarka. waxaa ka mid ah garanaysaa Matthias oo wakiilka Danishka ama Denmark, waxaa kaloo ku jira UK oo Ingiriiska, waxaa ku jira Norway xagga dambe ka soo beertay iyo wadamo kale. Marka ujeedka maanta socodkaygana wuxuu ahaa inaan u kuurgalno halka uu marayo isagoo san warbixinta ku hayna iyo kormeerka iyagaba 80% mashruucaasi gabagabobay 20% isku xirka ugu dambeeyeen hadda la dhameystiri doono. waxaana la socotaa shirkadda Shaba oo runtii mas'uul ka noqon doonta oo degmada Boorama mas'uul uga biyaha iyo gobolka Awdalba. waxaana la socdaa sanduuqa SDF maamulayaashooda oo najaxay ay ku jiraan. waxaana la socdaa Matthias oo isagoo matalaya donorska ama ciidii deeqdan lacagtan bixisay. waxaana la socdaa gobolkii iyo maamulkoodii. waxaana la socdaa markaa wasaaradda biyaha oo mas'uuliyadda biyaha ay saaran tahay iyo injineerskii farsamadan lahaa oo markaa kala duwan. intayadaas markaa waxa weeye waxaan u nimid maanta waxa weeye in mashruuca aan u kuurgalno halka uu marayo iyo waxa iman karo oo markaa lagu sii talagalo labadaba. runtii waxaan aad u kalsoonahay warbixinaha iyo qorshayaasha ay soo jeediso Shaba oo la xajeclo badan kale runtii waxa weeyaan biyo gelinta iyo horumarinta biyaha labadaba. iyagana markaa maanta martay aan ugu nahay bartan lana wareegi doono mashruucan markuu aanay gabagaboodo. runtii waxaan isleeyahay si loogu talagalo waxba ka tari doona biyaha Boorama walow aanu dhameystiri karin oo qorshayaal kale oo dawladdu ay wada uu jiro oo dhinaca biyaha haddana halkii loogu talagalay uu gaari doona. magaaladu intii la waday way sii fitay waxay kala sii korodhay halkii 2018 markii la qorsheynayay ama la soo daayay Boorama halkii taagneed maanta ma taagna. marka qorshayaasha dawladdu kuma koobna intana in la sii kordhiyana waan marka kala hadalnay shirkadda Shaba iyo wasaaradda biyaha intaba. marka waftigeena waan soo dhaweynay runtii. barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi oo isagna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay sanduuqa horumarinta Somaliland oo runtii sida uu sheegay agaasimaha guud hay dabagalkiisa iyo maamulkiisa ay leeyihiin wasaaradda qorsheynta. waxay ka mid tahay mashaariicda gobolka ka socda ee waaweyn. mashaariic badan baa gobolka ka socota oo biyaha ugu horeeyo oo runtii aan ku ammaanayno shirkadda Shaba oo iyadna ka qaadata qaybteeda. waxaan u mahad celinaynaa sida horeyba gudoomiyuhu ugu mahad celiyay maanta hay'adaha gacanta ku haya ee ugu horeyso hay'adda Danishka iyo wasaaradda qorsheynta qaranka. Master Matthias oo ku hadlayay afka deeq-bixiyaasha ayaa isaguna waxa hadladiisii ka mid ahaa. My name is Matthias Kerr and I'm the Danida representative of Somaliland. Danida is the development agency of the Danish Ministry of Foreign Affairs. And the purpose of today's visit is that we wanted to conduct on behalf of the SDF donors, which includes Denmark, UK, Netherlands, and Norway, a monitoring visit to see what concretely is coming out of our investments. This is my first time to Boorama. I have to say I am very impressed by the hospitality of the people I've met so far, the beautiful scenery,
but most importantly, to see the tangible progress that our SDF investments have made. We've been supporting the Borama water supply project since SDF 1. The project has run into some challenges. It's been a little bit slower than originally planned, but we're glad to see that as of today, the project is already almost 2/3 of the way complete. ugu dambeyntii waxay wafdigani kulan ballaaran ay la qaateen mas'uuliyiinta shirkadda Shaabe ee biyaha Boorama gacanta ku haya taasoo ay mas'uuliyiintaasi ay si qoto dheer uga warbixiyeen xaaladda biyaha Boorama iyo sidoo kale muddadii ay shirkaddani jirtay waxyaabaha u qabsoomay.